gaarka ah draftiga maaragtay Soomaali loo sameeyay wixii aad leedahay waa macquul taageer marka sidaas ayaa dastuur lagu dhisi karaa dastuur waa nidaam ummad ku heshiiyay inay isku dhaqaaqo markaas darteed halkaan haddaad soo akhristeen waa soo akhristeen haddaad la soo akhrisanin waxaan sameynaynaa maaragtay hal qodob ayaan ogolaynaa laakiin muhiimadda ugu weyn meelaha ugu waaweyn haddaan idin kormaro waxaa ka mid ah maaragtay Soomaaliya inay tahay la isku gartay charterkii oo maaragtay dowladdii oo Cabdullaahi Yuusuf uu soo sameeyay Nairobi Legacy in isku gartay inay federal tahay marka federalkii ayaa maaragtay ayaa dhaweyd mar aan tagay Garowe dood oo federalkii ayaa meeshii ka jeedinay ummadda Soomaaliyeed badanaa waxay isku raacaan ereyga federalka waa laga yaabaa inay maarkilo qaar ay aysan fahansaneen laakiin waxay isku raaceen in system aan maaragtay oo decentralized ah Soomaaliya ay samaysato in dowladda dhexe aysan soo magacaabin maaragtay gobernatore iyo maaragtay iyo taliye booliis iyo dadkii dhexdooda ay doortaan marka waxaa kaloo jira nidaam qoraayo dastuurka ku qoran isteediyada federaalka ah laba iyo wixii ka badan ayay noqon karaan laakiin waa inay shacbiga meesha iyaga ay wada fadhiistaan ay maaragtay maxaa lahaay ka wada hadlaan isteediyada oo maaragtay hal state hal region kaligiis ma noqon karo hal state laba gobol iyo wixii ka badan ayaa state laga dhigi karaa laakiin waa in shacbiga degan meeshaas dadkoodii majority-ga ay ogolaadaan marka waxaa kaloo jira xaaladda xamar hadda waxaa la isku raacay ayaa dhaweyd markaan Garowe joognay inay noqoto magaalo madaxda Soomaaliyeed laakiin xamar statuskiis weli lagama hadlin qodobka dastuurka wuxuu dhigaya xamar saddex option ayuu siiyey saddex oo waxyaabo ayaa la hordhigay ummadda Soomaaliyeed inay midkay ay rabaan ay ka qaataan kan ugu horreeyay xamar waa inay sida maaragtay keligeed ay noqoto district sida Washington DC ama ay ku biirto gobol kale oo state ahaan ugu biirto ama keligeed inay federal state noqoto marka saddexdaa qodob weli waxay ka mid yihiin qodobada ay dadka weli ay isla afgaranin waxaa kaloo meesha ka mid ah systemka dowladda ay yeelan doonto dowladda Soomaaliya waxaa hadda temporary la isku raacay inay tahay dowlad oo maarkino parliamentary madaxweynaha ee baarlamaanka ka soo tagaayo ka soo baxaayo waxaa kaloo la isku raacay in maaragtay markii ay ummadda waddanka u garoobo in Soomaaliya maaragtay ay noqoto presidential madaxweynaha sida waddanka Mareykanka oo kale laga soo doorto meel kasta waaye waxaa la arkay powerka ayaa la isku haystaa maadaama inta 10 sano ugu dambeysay prime ministerkii madaxweynaha waa isla shaqeyn lahayn maalin walba dowladdii way dhacaysaa sidaas darteed shacbiga waxay isla garteen madaxweynaha toosa loo soo doorto prime minister meeshii ma jiraayo madaxweyne ku-xigeenaa jiraayo laakiin taa waxay dhacaysaa markii oo maaragtay Soomaaliya ay iyada dhan maaragtay shabaabka la xoreeyo maaragtay meeshii ay timaado xorriyad one man one vote 4.5 ka hadda maaragtay ilaa iyo baarlamaankan cusub uu jiraaya isagana maaragtay markii laga tago 4.5 markii oo laga tago xorriyad ay timaado ummadii ay waddanka nabad ka dhacdo 4.5 kaas waa laga tagaaya one man one vote buu noqonaaya marka floorka idinka idin furan yahay fadlan magacaaga sheeg haddaad marka mid inaan isku raacno waaye anaan hadda ogeyn qodob baan u galbaamay su-aalihiina dad waa soo akhristeen oo su-aalahan bilaabna kii idin roon idinka mid inaan maarkino aan isla raacno waaye formatka meesha aan shirka ku wadi doono marka fadlan ra'yigiina ka jirta ma qodob baan u galbaamaysa waxaa waaye waxaan ku tirnaa maaragtay haddii markii qodobka fiirinayna markaas inay maanta la rabo أنا نبتدي يمشي constitution waxa weeye waa
شرعي بني آدم سميستك وين يسقونا أنت وراقي اللي كانوا وأنت تكسو آخرين وصور دايجست كريني وسؤالي وقبل قبي أندرلاين كريسا هدي أنا سني مادو وأنا نالكاس الكاخرينا متقنا I don't think it's comprehensive نما and workable نما هدي لغبي إن نورث أمريكا رأيي سلقاته نورث أمريكا ومشوا مبادر دياسبرا سوماليين مبادرين أقونتو مبادر تاي بحال لغبي إن السيستم متقنا workshop or retreat أو some sort of مالين ويران مالين أو group لسوقي أو بركة final information كاللي سليمان بالنا I don't think إن كان يقول هرت كله وعليه سيدنا كجمر رأي كمدي بكرة مع آخرين حتى يبوه الرئيس هورنا ومعنا مركا أنا جوا حقبة نورث أمريكا و it is disrespect by everyone نمارس هذا الشوغين أقول هذا it's an insult in a way هذا ونلقطه horta waa mahadsantahay waxyar baan ka dhihi lahaa arinta fadlan raalli hala ahaado waan garan karnaa in meeshii ay runtii fursad oo saasa laysa siinin in walba soo akhriso ay ku fiicnaan lahayd waxaan maraynaa waqti aad tahayd ah 28 bisha waxaan rabnaa barnaamijkan bisha hadda maanta kow ah inaan iska gudbino aan u gudbino maaragtay guddiga madax bannaan ee dastuurka kaasoo oo u geyn doono guddigan kale oo la sameynayo la yiraahdo constitutional assembly marka raalli hana laga ahaado fadlan wixii aad contribution wax oo perfect ah meeshaan ma jiraayo marka fadlan wixii contribution aad ka geysan kartaan please no share حامد سيل مودو وحقنا عادي وأنا أركع كاس Thank you. مقعد الشيخ حامد مقالة عن كسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد واحد محمود جامع وحن كسعة راجستر مينيسوتا. هورتا وابل إسكار كايو وقول طلق علي إن يمادان يبين تجوب اسمه لكن وقت إنه حتى يسمع كيف يسمع ورد هاي ونكستي إنتاس طبعا فما أخري كلو point by point لكن فوكستي ويك وحي critical point وكراي وين وكديتا طلبنا وحنا عصرنا إن لو كعش تاسوامي أنا وحنا كلا هلكن وحنا كلا دستور contradiction بعض contradiction كبروا هو واحد شيء إنه دستور دولته كل رقم يسوي هي federal government مركزنا مركز أخير وحويا Somali Republic وأكسر بحث المركز Somali Republic مركز مقاشي وحويا the old central system جري بيوتها هيك بيوتها يعني ودتي ومخلطي مركز هذه federal Somali federal government بان كل رقميا طلبنا مرة بقى فكرة هذه مركز تبو إلى أسوق يعني كده ما أعرف federal government وركب point by point Okay. إنت نخريب Page 2 وحاكيها Declaration of the Republic. Declaration مرة Federal Republic of Somalia. ماشي على ركيزه وعلى إسلام the region of the Somali Republic. إلى أن سوق قاعدين واحد Federal exactly كهذا ليش ما مغليس واحد Federal كهذا. تاسينا confusion بكينيس. مركز
مبدأها فالأساوي جمهورية الصومال جمهورية الصومال هي وحويها all central government دبت تبقى أوردن كانتي وهذا لوس ما يستي دولة هذا حروبي أنا أقول سما يسنا يعني مركا إن dadkii horta laga saaro taas waa mid labaad waxa ku madaxweyne ku-xigeen prime minister majlis laakiin waxa ku taala labadii waa ku yaalay president vice president yo prime minister markaas leeba taasna taas aan kaaga jawaabo dastuurka laba option waa ku siinaya option waxa waaye oo hadda aan dhahnay presidential system iyo parliamentary system labadaba dastuurku waa ku qoran yihiin laakiin ayaa dawlad markii garow la tagay waxaa la isku raacay in Soomaaliya ay noqoto for short period in laga dhigo parliamentary system maadaama aan la heli karin gobollo fara badan oo Soomaaliyeed aan xor ahayn sidaa darteed qodobku wuu qorayaa laakiin markii ugu dambeyso Soomaaliya waxay noqonaysaa wadan oo maaragtay sida isku raacay haddana idinkana ra'yiga waxsataan dadka waxaa la leeyahay meesha markaad ku arkaysid waxaa la leeyahay waxaa loo fasirayaa in fact public input waa loo baahan waxaa loo fasirayaa waxa uu yahay presidential system iyo waxa uu yahay parliamentary system marka labada qodob meesha aad ku arkaysa waxaan rajaynayaa inuu yahay qodobka 9 chapter 9 laba chapter 9 jiraan chapter midna wuxuu ka hadlayaa presidential system midna wuxuu ka hadlayaa parliamentary system waxaa loogu talagalay shacabka inay akhristaan ay gartaan waxa ay kala duwan sidaas darteed kii iyaga ay rabaan markaas ay qaataan options kaasna hadda hadhow waxay la tahay waxaan ka gaari doonaa dadka la soo ururin doono oo 850 kaaba waan ka gaari doonaa option kala qaadana dhowr meelood baan anigu xusaa kow waxaan isleeyahay citizenshipka aad iyo aad buu loose u yahay example baan siinaya haddii hadda uu civil war ka dhaco oo ay xataa hadda dadka ku jabay Ethiopia oo 85 milyan ah oo laga yaabo dhowr milyan oo qof inay tagaan maxaa ku yiraahdaa Soomaaliya tagaan magaalooyinka degmada tagaan haddana ay qaar boqolaal kun joogaan gobolada qaarkood oo ay 5 sano 10 sano 12 sano 15 sano joogaan oo ay ku yimaadaan oo sida meesha ku muuqata marka horta regionally waa inaad fikradda madaxa ku haysaan haddaad beri news ka dhigtaan sida Soomaalidu ay citizenshipkeeda u qaadanayso khatar baa ka imaan karta hana ku talagelinina maanta waxaa jira oo keliya berito waxa dhici iyo maxaa crisis doolka ka dhici kara inaad ku talagashaan. I don't like the position of Prime Minister in Somalia because, as we know, the Prime Minister and the President are always fighting over executive authority. The government is not functioning because they are at loggerheads. I want the position of Prime Minister to be eliminated as soon as possible. I want Somalia to have a presidential system like the US. Maybe the current stakeholders or the Prime Minister and the President don't want to lose their positions. They can have it for the next term. But come next election, 2017 or whatever, there should be no Prime Minister in Somalia. The public is not involved in the process. The Commission and their technical experts are not reaching out to the Somali community, whether inside Somalia or outside diaspora. For example, Minneapolis is home to 75% of Somali Americans are here in Minnesota. We have almost more than 100,000 Somalis here. Nobody was invited or notified of today's event until today. I don't know what they're hiding.
people are just calling each other saying, please, there's something going on, come. And nobody was, there was no publicity or an effort to make the community aware of the event so that they can come and add their comments. Constitutions are ratified in different ways. Public referendum, parliamentary, ratification. We don't have working parliament there. We don't have public, security to conduct a referendum. So you have to do what you have to do. A constituent assembly makes sense, but how you select those people, what do they know, how much time you give them to read and understand what they ratify, those are all important. But the way I'm seeing it, last time in Galkayo, they changed the number of the constituent assembly from 1,000 to 800 and something. They are manipulating it for their own personal gains, and they will be selecting their friends to ratify the constitution and select the next parliament. So it's all rigged system. I think we have to think hard and careful about the religion, state and the religion in Somalia. One of the biggest problems we have in Somalia is the religious interference in the governance of the country. I really think that Somalis are free to practice their religion, but at the same time, they have to be free to govern themselves. And therefore, religion and the state have to be separated. The state affairs and the religion must be separated. The system of government that is going to be adopted, whether it is a parliamentary system or presidential system, both of them I think is okay. We are a federal system. India is a federal system and they are parliamentary system. United States is a federal system and they are presidential system. So in both cases, the laws have to be followed, have to be very clear. The constitution has to be clear. Whichever is adopted, that is okay with me. Of course, it's okay. I think a convention can ratify the constitution, at least for the moment. Taking into consideration the security of the country, the situation which is happening now, I think we have to be flexible, and a convention that is over 800 people can ratify the constitution, and that's okay with me. This morning I was called by my friend, said, please can you come to this conference? I think they could have done a better job by using the media a week ago or 2 weeks ago, creating effective ads, using Somali websites and all other things. Now, all of a sudden, it looks like they're sneaking in and they're sneaking out, which is not right. I have not had time to read it. I only glanced through it. My assumption is the Constitution needs some amendments, and I believe that there should be time to go through it by the convention, by the constitutional convention that will be held. waqti dheer aanan haysanin oo aan maaragtay si guud ama si gaar ah aan uga falanqoono ama aan waqti aan ku akhrino oo aan si fiican u darasno oo runtii aad malaynaysa in si maaragtay degdega waxaan ay ku dhaceen tan kalena runtii waxa waaye waxaa jira su'aalo badan oo runtii u baahan maaragtay in laga jawaabo kuwaasoo maaragtay ay ka mid yihiin marka hore dhaqangelintiisa yaa u leh maaragtay awood in ay maaragtay ratify gareeyaan ama ay baas gareeyaan ama dowladda hadda maarkan oo meel gaarka ah meesha joogta iyo saxiixayaasha saxiixay oo runtii qaarkood maaragtay uu su'aalo kaga jiro dadka maadaama maaragtay baarlamaanka dhexdiisa ay ka muuqato in markii waqtiga la saxiixayay runtii gudoomiyaha baarlamaanka ay baarlamaanka ka codeeyeen in uusan u ahayn maaragtay afhayeenka baarlamaanka tan kale oo jirtana waxay tahay runtii dhibka uu keeni karo constitutionka laftigiisa maadaama uu yahay wax oo aad iyo aad detailed u ah oo wax walba maaragtay runtii aad iyo aad loo falanqeeyey oo loo qeexay
taasina ay runtii ka hor imaanayso shaqadii ay qaban lahaayeen hadhow baarlamaanka iyo legislative branchka oo sharci dejinta kas constitutionku waxaa loo baahan yahay inuu yahay wax frameworkii guud ee lagu socon lahaa dhiso laakiin una baneeyo maaragtay waxyaabaha dhow la qeexi karo ama lagu dari karo ama laga jari karo taasina runtii fursaddaas waxaad moodaa inuusan siinaynin constitutionkani oo hadhowna markii la doono sharciyo kale iyo waxyaabo kale in lagu dabaqo uu ka imaan karo isku hor imaadyo tan kale ee maaragtay qodobka kale isagana meesha ku jiro waxay tahay maaragtay qodobo ku jiro constitutionka laftiisa oo mid qaarkood ay maaragtay leeyihiin laba gobol oo isu tagtay keliya ayaa samayn karto state noqon karto taasina waxaa imaanaysa su-aasha maaragtay isweydiinta mudan markii hore sidii lagu dhisayba gobolladii jiray in ay xaqdarro ahayd marka soomaaliduna waxay tiraahdaa maaragtay hal xaaraana nirig xalaala ma dhasho teeda kale haddii state uu laba degmo oo ka mid ah laba gobol oo kala duwan keliya haysto gobolna laga yaabo inuu yahay gobol weyn oo dad badan oo degmooyin badan leh uusan noqon karin taasina xoogaa waxaa u malaysaa inay ku jirto xaqdarro dhibna uu ka imaan karo tan kale guudna waxay tahay dhibka uu keeni karo maaragtay federalismkan ku dhisan stateska ama regionska oo iyaguna ku dhisan qabiilka dhibka uu u keeni karo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo danta waddanka guud ahaan sababtoo ah markii region walba ama maaragtay state walba uu isagu fiiriyo dan waxa uu ah regionkaas waxaa runtii meesha ka baxaya danta guud ee la wada wadaagay ee ah waddanka marka taasina iyadana in laga fakaro iyo in aan loo qaxin ummadda Soomaalida inuu federalismku yahay waxa kaliya Soomaaliya runtii ay ku socon karto ama ay ku dhaqmi karto oo la baneeyo optionno kalena maaragtay inay imaan karaan marka runtii aniga communistayga iyo arrinka kale aan kana dhiibtay fikradayda waxaa ka mid ahaa iyadana participationka ama ka qaybgalka haweenka oo hadda boqolkiiba 30 la yiri in aan anigu ku dhiirigeliyay runtii in aan 30 la dhihin konton ama ka badan maaragtay haween noqdaan sababtoo ah maadaama uu haweenku yahay dadka ugu tirada badan populationka uu ragga ka badan yahay in maxaa la yiraahdaa qayb ahaan ay iyagu helaan sadkii ay mudnaayeen inta horta waxaan ka xumahay waqti badan aan loo helin dastuurka in la akhriyo oo la fahmo inkastoo website-yada ay ku jireen laakiin waxyaabo badan oo isbedbedelaya ayaa jira marka ka saxda ee ugu dambeeyey ku yahay xogaa lama socon karin xogaa dhinacaasi laga gaabiyey runtii way dadaaleen dastuur in loo qoro Soomaaliya meeshan waan ka jeediyey ولكن كعانك بسوا كنا نها دستور ما نلاقين كعانك ما كنا شيء دستور كسومالي ولا غير إن دستور وقرا واحد أحسن عندنا لكن دستور كسر نقول عن مدة الصومالي بقى إلى مدة دير هذا اللي هو في السنة هذه هي هذا بدأ عن حاجة دراي أنت كلا وين أحسن لكن أنا كجرسين كري إنه عارف وين يقول أصلا أنت أنا كهذا حكم بها قلبك لشرع عن السيتيزن الشبكة كان قلب كاسي قلب كجرو اللي هي المية وسدي الجرعة والد عن لهنا دي لعكم الله وقوصنا هي المواد الصومالية وياها معناه إذا مركا بعيت قف كستو جنسية كستاكيما قف عدان ولبلوله هدوي ما دو سديت سنة كوية ويرا والد صومالي كوالد كويرا والد مرحا أما وصل كوالد كان محتاج صومالي معناه إنه قناة أوتوماتيكية وحلو قنصنا إنه يحيي مواد الصومالية وحقول إنه وضع مركو قارة دادي لو بحنا إنه مدحين مقدار ذلك مدحين وكل مركو الله قبل كاسي أثرت دولة إن هذا هو فيصل قبل كل بعض وحدا عندنا وحكم لها فدرالك وعضو مريسا أوريدي إن دستور كله قري garanti uu yahay in laga hadlo ba aysan ahayn marka in dib loogu noqdo federaalku wuxuu ka mid yahay system dawladeed oo dalka uu xukumi karo decentralized decentralized kaas waxaa soo geli kara regional autonomy oo ka yar federal aniga waxaan personal federal kiido wax yahay complex yahay dib badan yahay dhaqaale badan u baahan yahay diyaar aan u ahayn baahida keentana kaliya ay tahay maadaama la dagaalamay
in xogaa nin kasta uu baqayo leeyahay federaalka rabaa si aan ugu nabad galo laakiin haddii baahidaasi lagu salayn karo regional autonomy oo region kasta inta fariisto maamulkiisa wixiisa samaysan karo ma loo baahan yahay in federal la sameeyo qarash badan la galo oo maaragtay systemka sidii loo administer gareyn lahaa loo maamuli lahaa aan la garanayn marka qodobkaasi federaalka xogaa dad badan oo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen uu ka mid yahay oo arrintaas xataa ka dooday oo yiri looma baahna waqtiga ama experience wala way jireen qodobada kale oo aan ka dooday waxaa ka mid ahaa arrinta madaxweynaha iyo prime minister ka loo baahan yahay laftooda dhowr mar ay isqabteen ama madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen popular dadka ay soo doortaan haddii la sameeyo inay ka sahlan tahay prime minister qabiilo lagu sameeyaa madaxweyne qabiilo lagu sameeyaa bariin kastaba qabiilkiisa ayaa la iska celi qodobka ugu dambeeya waxa waaye federal baalkii wuxuu qoran yahay hab aad iyo aad detailed oo hoose constitution aniga waxaa marka nin baarlamaanka marka la sameeyo kale doodooda ama awoodooda way yaraanaysaa marka waxay rabaan inay ka doodaan daliilada constitution ku qoran yahay kama hadli kartaan dib baarlamaanka muxuu qabanayaa marka loo baahan yahay qodobada qaarkood oo asaasi ah sida ka muxuu ahay hadda aan sheegay citizenka ah midda badda oo aan dhawin dood badan ka timid hadii lagu qoro kale maartay si aan loo farigelinin asaasigaas waa qaba laakiin inta kale xogaa general ay noqoto oo baarlamaanka marka hadda uu noqdo qaybtii maartay interpretation ku sameeyay oo marka saxi lahayd oo ma toosin lahayd in marka awoodooda meesha ka labato horta waa arrimahaasi guud ahaan waxaan arkaa xogaa degdeg yar inuu jiro oo tiro badan dadka xataa qaarkood cabsi ay muujinayaan oo ah waxaan hadda aan sheegayna xataa ma tixgelin doonaan masmaya wuxuu waan hadalay waan laga duubay intii aadi doontaa sidee noogu soo noqon doontaa ay lafteeda waxay leedahay dhibkeeda waan rabnaa in dalka dastuur loo sameeyo laakiin inaan lagu degdegin dadka la baro wax federaalku yahay wax federaalka ahayn wuxuu faa'iideeyay wuxuu qasaare leeyahay waxaan qabaa in waqti yar oo fiican dooda la kordhiyo dad aqoon iyo anigoo kale hadda aqoon u leeyahay constitution intaan ka akhriyin baa iska buubuusanaya laakiin dad badan waxaa jira expert aan filayo in codkooda aysan ka dhiibanin ama aysan ka dhiibanin time loss iyo dadka nooca inay maaragtay ku sameeyaan critique badan federaalka ileen waa wax lagu xukumi doono jiilasha soo socda muddooyin 3-4 sano laga yaabo constitutionkaas in dalka lagu xukumo marka maadaama awood intaas leeg uu yeelan doono in aad iyo aad loogu fiirsado wax la yaqaano sharciyada iyo muwaadiniinta dalka iyo wadaninimada Soomaaliyeed ku dhisan maaragtay inay ka soo baxaan dokumenti noocaas oo maaragtay constitution processka muxuu ku lahaa markaan la hadlay dadkii noo yimid oo hawshan waday North America oo dhan in laga soo qaatay magaalada Minneapolis iyo Berry oo magaalada Ohio ay tagi doonaan dad badan oo qualified oo aqoonta aad u lahaa waxa jooga Washington DC area waqti ma helin Toronto Soomaalida ugu badan North America ay joogto kale waqti loo ma helin jaalid badan oo Seattle San Diego iyo meelaha jooga waqti loo ma helin hadda lafteeda meesha waxaan ka arkayaa inaan si fiican loo sii iclaamin dadka meesha jooga ay noqdeen wax adiga boqol ku faanayn marka dokumenti awoodda culus leh in group yar ay ka doodaan xogaa oo hadhow la yiraahdo diaspora-hi waa laga soo ansixiyo okay noqotay xogaa waxa arkaa inaysan taas sax ahayn tan daba ku xigta xataa leeyahay 825 aan la soo xulay sida lagu soo xuli doonaa yaa soo xuli doona aqoontooda maxay tahay intee waqti leeg ay haystaan inay ka doodaan ayda lafteeda waxaan malaynayaa in si fiican aan loo qeexin oo marka ay noqon doonto wax degdeg maaragtay lagu waxeeyo oo hadhow marka dood badan ka timaado aniga waxaan ku taliyay dhaxdeena inaanu dhaqaalaheena aanu isku aruursanno workshopyo iyo meeting aan qabsanno aan ka doodno qodob uga doodno kadibna ayadoo qoraal ah oo danaheennii iyo waxayna ay ka muuqdaan iyo talooyinkeenni inaan markaa kabacdi u gudbinno qolooyinka shaqada ku leh hadday qaataana haddee waa sidaa rabnay hadday qaadan waayaan haddee annaga waxaan nahay dad markaa dukumenti gudbiyey maanta adduunku meel fog buu gaaray technology baa lagu wada shaqaynayaa hadal meel aan ka dhahdaa waxaa ka fiican dad dhan oo qurbo joog ah ayaanu nahay oo dana badan iyo dhibaato badan haysato oo u baahan dowladda Soomaaliyeed mustaqbalka shuruuc dadka u gargaaraysa oo ummado ciyaalkooda wax u qabanaya inaan maantay ku darsanno talaado ku darsanno marka saasaan ugu baaqayaa ummadda joogta reer galbeedka qolo walbaaba inay isku tagaan dhaqaalahooda inay isku darsadaan
ay akhristaan ay ka doodaan kadibna waxa ay rabaan oo qoraal ah ay u gudbiyaan qolooyinka shaqada ku leh taas waa weyga ugu fiican oo arrintan ma arkaysaa qurbo joogta dadka danahooda ay ku gaari karaan